bani aadam baahidaada ha u sheegan baahidaada waxaad u sheegataa ilaaha albaabadiisu mar walba aan la xidhayn ee albaabadiisu ay furan yihiin kaa baahidaada u sheego haddaad baryada ilaahay aad daysidna ilaahay waa kuu cadhoonayaa bini aadanka haddaad barididna baryaday kugu nacayaan bini aadamku baahi badan iyo bogtaan badan ba la isku nacaa taasay leeyihiin bini aadan haddaad tirahdid keen oo ku nici ilaahay haddaad keen odhan weydid isna uu kuu cadhoon gacantan marka waxaa laynoo siiyey inaan ilaahay hoos dhigano ilaahay barino maalik binu diinaar raximahullah habeenada ka miduu ku manaamay manaan baa lagu yidhi kac masaajidka ku yaalla xaafadda waa madiinatu basra inan yaroo shaab baa jooga oo ilaahay ku caabudaya 3 maalmood yarkaasi cunto ma cunin qaadoo raashin kariyo u gee baa lagu yidhi manaam uu kacay cuntadii buu soo diyaariyey maskiidkii u yimid wuxuu soo galay inan yaroo shaab oo ducaysanayo shabaabkeena iyo shabaabka isku eg cuntadii buu u dhigay uu la cunay markay isbarteen ay wada cunteeyeen buu ku yidhi aqalkaygu waxuu ku yaallaa xaafadda ka dambaysa ku yaallaa waddadaad saa u soo mar sidaa u soo mar mar allii markaad baahateed cunto u baahatay ii kaalay buu ka yidhi hadalkaa markuu yarkii yaraa maqlayba wejigiisii buu bedelay wuxuu yidhi maad i taqaanay horay may maan ku aqaanay maya xalay adigoo hurda ka amarka kugu siiyey inaad kacdo cunto aad ii soo karisood ii keento kaa baryadiisa intoon daa'iman adiga ku imaadaa buu ka yidhi idaa sa'alta fas'al illaah kaasaan baryi buu yidhi meel kale lama baryo albaabka makhluuqa waan iska xidhay buu yidhi anigu albaabka khaaliqaan garaacaa bas xidhiidhka ilaahay innaka inaga dhexeeya hadduu inoo hagaago nolosha adduunyada inoo hagaagi xidhiidhka inaga dhexeeya innaka ilaahay maxaan ku hagaajinaynaa jidhkeennan camalka wanaagsan waa inuu ka soo baxaa salaaddii waa camal wanaagsan soonkii waa camal wanaagsan qur-aankii waa camal wanaagsan sadaqadii waa camal wanaagsan fadhiga miskiidku waa camal wanaagsan dikrigu waa camal wanaagsan tacliinta diinta la baran waa camal wanaagsan diinta ummadda loogu yeedhaa waa camal wanaagsan baa la rabaa in laga shaqeeyo salaadii subax ayuu nabigeennu ka baxay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu nebigu sidaa u eegay wuxuu yidhi kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo sooman abibakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo qof bukana soo buuqday abubakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo janaasaya aasna ka soo qayb galay abubakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo maaragtaanay qof xanuunsanaya soo siyaartay abubakar baa yidhi aniga markaa buu nebigu yidhi khisaalkaa aan soo sheegay nin uma kulantaa hadday u kulantana ninkaas waa ahluljanna buu rasuulku yidhi qabla salaat alfajr ayuu abibakr sidiiq isagoo sooman waagu u baryey isagoo sooman aasna ka soo qayb galay qof bukana soo siyaartay miskiinna soo quudiye wax soo siiyey daarulcamal bay joogeen ay garteen inay daarulcamal inay joogaan bay garteen daarulcamal baan joognaa daaruljazaa halkan maaha daarta laynagu abaalmarinaya adduunyadan maaha adduunyadani waa daartii camalkuna waxau ka soo baxaya waa jidhka maashiinka camalka samaynaya waa jidhkaagan jidhkan ayaa la doonayaa ilaahay in lagu raalligeliyo xubnaha bas haddaan xubnaheennaas ilaahay ku caabudno ku adeecno adduunyadan sidaan doonnaa ilaahay noo yeelay galabtaan sheegaaye kitaabka imaam ibnuljawsi raximahullah uu leeyahay sifatu safwa dasa cajiibuu ku sheegay cabdulwaaxid binu zayd nin la odhan jiray nin saalixoo caabidoo reer maka ayuu ahaa habeenada ka mida siduu u ducaysanayo u alla baryayey ayuu ilaahayow wuxuu yidhi ilaahayow gabdhaha muuminaadka eed aniga maaragtaane adduunyada aad aakhirada jannada iigu tala gashay hadday adduunka joogaan ilaahu itus buu yidhi uu seexday markuu ducaystay buu iska seexday manaan baa lagu yidhi gabadha maymuunata sawdaa laydhaa ee ciraaq ku nool ee magaalada kuufa ku nool ee miiga kuufa ku nool ayaa ka mida gabdhaha muuminaadka jannada lagugu guurin doono
makuu ka dhaqaaqay ciraaq buu tagay magaaladii kuufuu yimiday dadkii buu waraystay markaasaa loo sheegoo la yidhi wartaasi waa tu macduurada oo dadka ma soo dhex gasho magaalada dibaddeeda xoola ku dhaqataa waa iyada waxaan rabay ii tilmaama halkaa maroo u tag baa lagu yidhi wuxuu u yimiday iyadoo adhi badan dhex joogta adhigaygii iyo waraabuhuna isla daaqayaan isla cunayaan markaasay jubbad suufa ayay markaa huwan tahay salaad bay tukataa 800 maan u malayn kitaabka inaan ka arkay subaxdoo kaliya 800 oo rakacay tukataa way ka baxdaa way tukataa way xidhataa way tukataa markaa bay dareentay qof bini aadana inuu meesha soo dhawaado adhiga soo dhex galay salaadii bay khafiifisay kolka salaadii ka baxday ayay ku tiri ibn Ziyad ibn Zayd bay ku tiri ballankeenu halkan maahin oo aakhire iska socod bay ku tiri والله يابي magaciisina way sheegtay muraadku u socdana way sheegtay arigeegiina uu eegaayo waraabihiba iska dhex socdo oo la cabayo oo la daaqayo oo dhex jooga wuxuu ina zaydina nahay oo arinka u socda ayaa ku sheegay waxay tiri xadiidkii nabiga maadin lowday innal arwaax junudun mujannada fama ta'arafa minha i'talafa وما تناكر منها اختلف حديث النبي محمد يري أرواح بني آدمكو وأسكر إلهي واسكو حرن ويان عالم الأرواح بان وذا جوغيني لبدي الروحي هلك سرى اسكو تقاني الدونكنا واسقرنا واسقرنا واسفهمي حدي هلك اسكو صوت ديدينا الدويدنا واسديدي أرواح لنا استقاني السلامة بكتري بل لكيننا وآخره سؤال كلامك ويدي بكتري السؤال هذا كان السؤال قابي أريقاً ورابو كاعني ما يمحات وآخر دي بولي بلي شيء وعيتني هلا يابن أنيقو إله خالقا ربي حريرك نقد حيبان أتكيستون هقا جستي لبدا حريرك كد حيان إلهي بهقا جيتي إنكم أنت الدين مرك الله هذا القاضي وحنوها يسنى دين تمن فعديد ويني آخرة وانت بس waddanka Yaman bari annagoo joogno ijtimaaciya ka qayb galayna ayaa gaadhi lan cruiserana hormaray xaga dambe waxa ku qornaa ad-dunya bil mal wal aakhiratu bil a'mal adduunyada lacag baa ku haysa aakhiradana a'maal baa ku haysa may hadalkaasi waa hadalka cilmaaniyiinta weeyaan adduunyadu inay ku hagaagto hadaa dooni aakhiradu inay ku hagaagto hadaa dooni labada daarood inay ku hagaagaan hadaa dooni waxa ku haya amalka wanaagsan baa ku haya adigiyo ilaahay xiriirka niga dhaxayo hagaaji bas wa tamaanta bini aadanka caalamku ay garan laayihiin oo cilmiga fahmi lana man habba an yubsada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu bi rasuulku yiri nika jecel in arsaaqada loo waasiciyo cimrigiisana loo dheereeyo qaraabadiisa xiriiriyo bi rasuulku yiri رزق إلا إنه واسعية ما دونينه بل نك الرزق إلا واسعية دوني وقعدت تال لكن حقيقة دون عيب كأنه مالك له رحم كاجا حديدي أباها هو يدا أديركا أبتجا هبريرتا إددا المادردا ولا لها قوة دلين حديدي لعقدتك لكم حديديو لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن وسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق بالنبي يقول dadka lacag laguma deeqa buu nabigu lacag dadka lacag kuma wada gaari kartaan dadka lacag kuma wada raali galin kartaan laakiin dadka waxaad ku deeqdaan buu rasuulku leeyahay wajiga furan iyo dabeecadda wanaagsan wajiga furan iyo dabeecadda wanaagsan dadka lacag laguma wada deeqi karo خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المال كيف لعقتي هل كان نقطي ما حكى يلا دتك او قيبيه بود لعقتها والله قيبيه وهذا way hadhay jumca walba markii laga baxo salaada jumcada dhalinyarta iyo dadka masaakiinta iyo ducafada lacagta wada siiya buu Umar Abdurrahman bin Auf hallo yiri ya amir al-mu'minin bayt al-mal ka wixii lacag ku jiray hadaa tiraahdo wada bixiya ilaahay nooma keena balaaye haday balaaye bari timaado maxaan gaashaan ka dhiganaa iskaga difaacnaa buu ka yiri
markaasuu yidhi cabdiraxmaanow carabkaagaa shaydaan baa ku hadlayay buuhi maanta laqananii allaahu xujatahaa wa waqaanii sharahaa buu ka yidhi hadalkaa aad tidhi xujadiisa ilaahay baa ii laqinay balaayada soo socotana sharkeega ilaahay baa iga badbaadiye oo naga badbaadiye balaayada iyo masiibada imanaysa waxaan u diyaarsaday maad garan buu yidhi aan u diyaarsannay maya nebi maxamed wuxuu u diyaarsaday baan u diyaarsannay buu yidhi waa maxay ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nebiga haddaan haysanno balaaya nagu dhici mayso balaaya noo iman maysa buu ka yidhi